السلام عليكم. عشان waxa waaye waa age da'da weli waxaan ku jirnaa adsets level meeqa waxaan ka dooranay oo kala nooca kow website inaan wax ku xaysiisanayno ayaan u sheegnay kadib pixelkii ayaan sii sheegnay kadib waxa waaye budgetkii iyo meeshii waqtigii noo bilaabanaysay iyo maalintii inta nagala qaadanayay ayaan usii sheegnay macnaha sii gashanay saacaddii noo bilaabanaysay locationkii oo wadankii ama xaafadii ama areadii aan rabnay dadka aan guryaha u dhisno inay joogaan aan rabno inaan guryo u dhisno ayaan ka dalbanay haddana waxaan meeshaan ageku macnaha waxa waaye waa da'da aan macnaha specific da'daas ayaan rabnaa leenaa oo kale so marka da'da markaa rabtid inaad macnaha iska fiirisid oo da'da iska bedeshid oo kale waxaad dhigi kartaa marka change da'da so ageka marka waxa waaye sida aniga hadda aan wax u xayeysiisto haddii aan qof wax u xayeysiinayo iyo haddii aniga aan samaynayaba xayeysiin waxaan fiiriyaa offerka aan macnaha markaas hayo oon inaan xayeysiiyo rabo yaa loogu talagalay ayaan maskaxda horta marka hore ka shaqaysiiyaa haddii aan rabo guri inaan cid u dhiso obviously waxa waaye waa oo aan soomaaliyana ku xayeysiinayo boqolkiiba adiga 85 jir in guri loo dhiso ma rabiyo haddii maybe 25 ama 15 kale 15 kale waxaa laga yaabaa inay macnaha ayayadood ama aabahood inuu guri in loo dhiso oo rabi oo macnaha ogaay oo markaas markuu xayeysiinta arko oo ila soo xiriiro oo na dhaho haa guri aaba loo dhisayo macnaha nasoo waca camal aabahii nambarkiisan ku siinaa iyo waxa soo dhahayo waa adiga boqolkiiba 5 ama iska dhici adiga boqolkiiba 5 wax ka boqolkiiba 95 jir in guri in loo dhiso rabo maleemaani marka haddii aad macnaha gelaysid offerkaaga ku xirantaa marka haddii halkan ku soo gaabiyo haddii aad tahay qof cosmetic gado especially qaybta oo haweenka oo kale lipstick ama eyelashes ama creamka ama waxyaabahaas oo kale samaynayo so markaas waa dhigi kartaa okay 18 jir yes oo gabar waa dhigi kartaa marka genderku macnaha ageku waxa aad markaas xayeysiinaysid waa inay macnaha aad ogtahay marka aniga especially hadda wadamadan oo kale markii aan wax xayeysiinayo ilaahuma xataa ahaato inaan wax gadaayo waxay ku xiran tahay waxaas aan gadaayo marka waa dhigi kartaa 20 jir wixii ka bilaado waa dhigi kartaa inkastoo aniga aan ka bilaabo 25 jir waxay ku xiran tahay waxa aad iibinaysid so hadda marka maadaama anaga aan guri inaan dhisno rabno aan raadinayno customer aan guri u dhisno waxaan sameynaynaa waxa waaye 25 jir wixii ka weyn ilaa 65 so marka ageku waa in macnaha adiga aad ku fiirisaa daatada waxay kuu sheegto so marka adiga macnaha miskaaga dhigaysid 25 iyo wixii ka weyn waxaa leedahay okay alaabta aan gado waa alaab noocaas dadka iga gato waxay u badan yihiin dad noocaas waa ka warhayaa because waxaas intaasoo sanan gadaay waxa aad taqaano waaye waxa gadaysid ama waxaa taaba qof oona waxa uu gadaayo oona aqaanin oo customer oo macnaha waxa gadaayo oo kale wax u sameeyo oo marketingka iyo waxaas qaabilsan oo agency owner oo sida hadda macnaha u maleynayaba adiga naftigaaga inaad agency leedahay ama aad agency samaysay rabtid oo business aad bilaabi rabtid oo marketing agency aad bilaabaysid ama aad tahay business owner oo businesskiisa ka warhayo marka haddii adiga client ama customer wax u samaynaysid oo kale waa marka hore inaad customerka aad macnaha aad la soo sheekaysataa oo aad soo barataa industryga ku jiro aad ogtahay waxyaaba waxay macnaha gado boqolkiiba 90 dadka iibsado waxay yihiin waxaas informationkaas oo dhan waa inaad customerka macnaha clientka wax xayeysiinaysid sidoo kale inaad marka consultationka ama wada tashi ama hadalka iyo macnaha aad interviewga ama aad la sameynaysid sidoo kale inaad informationkaas oo dhan aad soo qorato waay haddii laakiin adiga customer aad tahay oo macnaha ganacsade aad tahay oo ama aad tahay qof oo marketing samaynayo whatever laakiin offerka hadda aad xayeysiinayso oo yahay offer oo kugu cusub sida hadda aniga offerka aan iibinayno kale hadda offerka aan samayn doono wuxuu noqon doonaa dad guryo loo dhisaayo marka maadaama dad guryo loo dhisaayo anaga aan ka ganacsan jirin horena aan u aqaanin waa macnaha markaas waxaad ku qiyaastaada macnaha waxaad ku qiyaasaysaa waxaad leedahay okay 25 jir iyo wixii ka weyn waxaan umaleynaa in diyaar yihiin in guri loo dhiso
laakiin intaas kuma samaysid waxaa leedahay okay tomorrow waxaad xayeysiin kalaad samaynaya oo 18 sano ilaa 25 jir inta u dhaxaysa oo same location ee xayeysiin kalaad saare oo just aad rabtid bis in macnaha aad ogaatid age kaas oo demographic age kaas oo macnaha u dhaxeeyo 18 ilaa 25 jir maxay horto ayagu xaalkooda muxuu yahay معناها أنا كلا أوقات بس معناها couple of days أما week أما أرن قريس حيثين تس أدي معناها أثيري بس because marketing كماهن وح أديك أدوم مليني سيد كلية ماهن أو معناها وح أدوم مليني سيد ولي لما آمنه مسك هذا وح مليني لما آمنه لقوما قوان لقوما جارو وح قوان كل جارا واحد دات هذا يكون شركته أو فيسبوك دات أديك كوسا بحدا يكون شركته وحلو قوامية مركا إيشكو وحواي وساس marka mar raba inaan ku sii dheeraado haddii aan galo genderka oo macnaha hal mar aan age-ka iyo genderkan ka dhigo module-kan ama lecture-kan waa genderku macnaha waxa waaye lab iyo dhadig dumar ama haween ama rag midka adiga aad isleedahay markaas ayaad ka dooranaysaa so marka hadda haddii aad rabtid all ku dhaafaysaa oo macnaha haddii aad rabtid in nin iyo naag bay arkaan xayeysiintan oo aad isleedahay nin iyo naag ba guri in loo dhisaa bay ku yihiin waxa waaye waa kaas waa saasa ku dhaafaysaa laakiin haddii aad ogtahay waxa aad iibinaysid in yihiin wax dumar bis loogu talagalay dumar bis aad haysaa haddii laakiin aad ogtahay waxaad iibinaysid in yihiin wax rag bis anfacayo rag bis aad ku dhaafaysaa laakiin waxaa laga yaabaa waxaad iibinaysid in yihiin wax dumar bis ah oo ogtahay dumar bis inay gataan laakiin meeshaas ma ku samaysid waxaa leedahay okay dumarkaas aad targadgareynaya saas ku wada laakiinse waxaad ogaataa inay jiraan rag badan oo waxaas aad iibinaysid inay dumarkooda u iibiyaan jecel marka taasna ma ku samaysid keliya oo waxaad samaynaysaa all different xayeysiin oo different campaign ah ayaad gaar u create gareynaysaa marka gaar u create gareysid xayeysiintaas all ayaad ka dhigaysaa locationkii wixii dhan isku mid aad ka dhigaysaa kadib waxaa fiirinaysaa haddana haddii wax lagaa iibsado idii lagu soo wacdo yaa kaa iibsada markaas waxa waaye waxaa ku kala cadeynaysa daatada Facebook waxaa ku kala cadeynaysa 99% dumar bis target gareysid waa campaign-kaaga mar walba success u ahaana xayeysiintaada ku shaqeynaya ama wuxuu ku kala cadeynaa inaad macnaha 80% dumar ay wax iibsadeen laakiin 20% ay rag ahaayeen so marka that means rag u baahan alaabtaas ay iibinayso dumarka loogu talagalay laakiin ayagu ay u iibinayaan hadiyad ahaan xaasaskooda ama iska fahmi kartaa waalidkooda oo maamadooda walaashooda marka meeshaas ayaa macnaha go'aanka ku gaaraysaa marka adiga hadda aniga for example anagoo kale waxaan sameynaynaa guryo ayaan iibinaynaa oo kale macnaha guryo ayaan dhisnaa marka maadaama guryo dhisayno anaga go'aanka ma gaarayno naag iyo nin iyo ma kala saarayna anaga waxaan leenahay wix 25 sano ka weyn oo guri in loo dhiso diyaar u ah ayaan u baahanahay in xayeysiinteena arkaan marka waa kaasaa cashirka meeshaasaan ku simayaa insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad fahamtay marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh